Bismillahirrahmanirrahim waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah kaas oo ku saabsan hubka adduunka ugu halista badan ee haddii la adeegsado wax noolaanaya aysan jirin waana nuclear-ka. Su'aashu waxa ay tahay wadamadee ku hubaysan hubkan keebaa haysta madaxyada ugu badan ee nuclear nala joog ilaa dhamaadka muuqaalkan laxar oo meel fog gaarsii aad baad u masantahay haddii aad intaas samaysay. Wadanka sagaalaad ee haysta nuclear-ka Kuuriyada Waqooyi sirta iyo awoodda nuclear-ka ee dunida ka naxisay. Wadanka go'doosan ee North Korea ayaa mar kale noqday mid si weyn ugu dhex muuqda wararka caalamka kadib markii si joogto ah uu u muujiyay awooddiisa nuclear taas oo cabsi gelisay quudaha waaweyn ee dunida. Barnaamijka nuclear-ka oo siro badan leh hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa si cad u muujiyay in nuclear-ka uu yahay hubka badbaadada qarankiisa isagoo oo sii xoojinaya tijaabada gantaalada iyo horumarinta madaxyada nuclear-ka sida ay sheegeen warbixinada ay soo saareen hay'adaha ay ka mid yihiin Stockholm International Peace Research Institute. Kuuriyada Waqooyi waxa ay haystaa qiyaastii 30 ilaa 50 madax oo nuclear ah waxayna si joogto ah u kordhinaysaa awoodeeda nuclear. Gantaalada gaari kara qaaradaha Kuuriyada Waqooyi maahan oo kaliya inay haysato nuclear balse waxa ay leedahay gantaalo dhaadheer qaar kamid ah waxa ay gaari karaan Mareykanka iyo Yurub. Tani waxa ay ka dhigaysaa mid kamid ah wadamada ugu halista badan marka loo eego amniga caalamka. Maxaa ka dambeeya awoodda wadankan yar? Falanqeeyaasha ayaa sheegaya nuclear-ku waa gaashaan siyaasadeed waana hab ay ku difaacayso nidaamkeeda sidoo kalena waa qalab cadaadis oo diblomaasiyadeed. Dunidu waxay ka walaacsan tahay waxa ay haysato Kuuriyada Waqooyi. Beesha caalamka oo ay hormuud ka yihiin Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa si weyn ugu walaacsan tijaabooyinka joogtada ah iyo kordhinta hubka nuclear-ka. Qatar dagaal oo lama filaan ah xiisada joogtada ah xaaladda jasiiradda Kuuriya ayaa mar waliba ah mid kacsan iyadoo South Korea ama Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ay sameeyaan tababaro military. North Korea ayaa ka jawaabta tijaabooyinka gantaalada. Kuuriyada Waqooyi waxa ay noqotay dal yar oo leh saameyn weyn awood nuclear oo sii kordhaysa khatar joogto ah oo ku wajahan amniga caalamka. Su'aashana waxa ay tahay dunidu ma xakameyn kartaa Kuuriyada Waqooyi mise waxa ay sii ahaan doontaa awood qarsoon oo leh halista haddeertaanba muuqato. Haddii aad halkaan la soo gaartay fikirkaada waa inoo muhiim ee qaybta commentiga nooga reeb.